in ka badan 200 oo qof ayaa banaanbax ku hordhigay banaanka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo hoyga safaaradda Djibouti ay ku leedahay magaalada Washington. dadkani dibadbaxayaasha ah ayaa ka codsaday dowladda Mareykanka inay wax ka qabato xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta magaalada Laascaano iyagoona sidoo kale cambaareeyay maamulka Somaliland waxayna ugu baaqeen in maamulka Somaliland uu gabi ahaanba ciidamadiisa ka saaro gobolka Sool. waana kuwan qaar ka mid ah dadkii ku banaanbaxay halkaasi oo fikirkoodana la wadaagay. dowladda Mareykanku waxa kale oo loo baahan yahay inay qayb ka qaadato sidii xabad joojin degdeg loo sameyn lahaa oo isla markaana ciidamada jooga magaalada Laascaano laga qaado oo ay tagaan xuduudda ay leeyihiin oo og magaalada la yiraahdo halka waa inay gaadhaan isla markaana waa inay ogolaadaan in gargaar bini'aadnimo iyo daawooyin loo gaarsiin karo dadka ku tabaalaysan halka. xaq waxay u leeyihiin in dowladda federaalka ay u hadasho ay mucaawimo geyso waddanka Mareykankana waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inay ka joojiyaan dhaqaalaha faraha badan ee ay siinayaan calanka buluuga iyo midnimada Soomaaliyeed baan waardiye waxa weeye Xasan Sheekh Soomaaliya oo dhan baad u dhaaratay waxaanu kaaga baahanahay moor baanu kaaga baahanahay daawada yar aad soo dirtay it's not enough waxaanu kaaga baahanahay ciidan waxaanu kaaga baahanahay wax kasta ayaanu kaaga baahanahay. Soomaaliya dhan baa garabkiina taagan inta qof ka nool yahay SSCna Soomaali kala go'ay mayso waa one nation kala go'ay mayso dhiigeena ku daatay hore ugu daatay awayaashan ugu daatay haddana ugu daadanayaan. Thank you for listening. Please make sure to share, like and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook and Twitter.